السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan dadkay subax u tahay, dadkay duhur u tahay duhur wanaagsan, dadkay habeen u tahay habeen wanaagsan. Saytiin fiican tihiin, xaaladiina ka warama. waa walaashin Safa Cabduqaadir oo dhehe soo dhawaada gacmo furan. insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa Safiim maxay ka hadli doontaa maanta waxaan ka hadli doonaa maxaa sababa burburka qoyska. waxa sababa waxyaabo badan sababa. midda koowaad waxay tahay waa midda koowaad inuu kalsoonidii oo meesha ka baxdo mise burburto. kalsoonida meesha ka baxdana sida banaamijyada lagu soo celiyo way adag tahay. tan kaleeto soo harta waxay tahay maanta haddii qofka kaleeto haddii uu u naxariisto mase kalgacal meesha yaallo mase naxariis ay taalo waxyaabo badan oo laisku fahmi waaye aa laisku fahmaa. laakiin hadday naxariistii meesha oolin kalgacalkiina meesha oolin aydan waa waaye hooyada inta badanba dhibkeeda iska badan maasha Allah. way ciyaal haysta ilaahay noo wada barakay inta haysan ilaahay ha siiyo. waxa 24 hours ka ayda shaqo aan la ogeyn ku jirtaa. laakiin aabihi ku soo haray waa 8 saacadood shaqo soo shaqeeya 8 saacadood soo shaqeeya oo guriga imaad maxaa laga rabaa meesha ka banaanta. haddii uu nasal lahaa inuu nasto, haddii maanta maxaa lahaye wixii la maanta noo ka maqnaa guriga markoo ciyaalkii ay kala seexdaan oo dhaho haye xaajiyo mise xabiibtiisee tahay ma fiican tahay maanta maxaa guriga ku soo kordhay, maanta maxaa ku qabsoomay, maanta maxaa xaaladda guriga ka waran, ciyaalka sidee yihiin, adi xaaladaada iga waran see tahay ma fiican tahay. waa kalsoonida meesha ku jirtaa, waa kalgacalka badanay. laakiin haddaad imaadid oo maxaa lahaa aad tiraahid aniga waa daalna sariirta la akortid gafuur kale oo taago haydan dhibkeeda leedahay taasne mawgido. marka sidee lagu xaliyaa waaye si lagu xalin lahaa aa meesha la iska rabaa. sida lagu xalin lahaa waxay tahay marka aniga Safi ahaan waxay la tahay sida lagu xalin lahaa. ana horta inta badan kulli mooda dhahay ragga Allah noo wada dhaafo wayna dhaleen waynoo dhaxeen waa dhalnay wayna dhashay ilaahay noo barakeeyo. laantood abaar waa ma fahanta. laakiin mostly way u badan yihiin boqolkiiba 95 way u badan yihiin in maxaa lahaa ayaga day imaadaan xaa guriga ka dhacay indhihiino cuntadiisa hay cunto diyaar ma taha cuntadiisa isku xaaqo kadibna oo cusmaan albaabka oo ka boodo masaxaas baariyaal saas la iska bedelo. warageen Soomaaliyeed iska bedela. burburka inta ugu badan qoysaska Soomaaliyeed waa ku batay waxa keenana waa rageena Soomaaliyeed runtii isku sheega fiican. waxa way aan run igu maaw absolutely been wax Allah igu imaan ma fahanteen. haddii aad tiraahid saaxib waa soo shaqeeyay maxaa ka gal waxa soo shaqeeyay maxaa ka gal koontadeeda aniga iska leh ma soconays wax burburka qoyskeena saas waa. laakiin wixii asoo shaqo xabiibti macaan intaana noo soo shaqeeyay ma sha Allah macaan intaana noo soo shaqeeyay waatan wixii soo shaqeeyay wixii soo dhacay waatan koontadeeda waatan noo adiga noo maamul maxaa lahayo waa kana maxaa noo imaaday hay maxaan meel noo dhigmaayo maxaa lahayo aan wax ku xalisanaa ilmo saqiir haysanaa maxaa mustaqbal aan ka dhiganaa. laakiin dad tiraadnaya shaqo igu malihid markii aad guriga imaado aad sariirta jiif saarnaatid mase markaa firaaqadiisna albaabka ka baxdo magaalada aad gashid wallahi wax ugu darno ugu burbur waa taas aan runtii ugu walaaq been igu maan waxa fiican sida banaanbo in inta yar waqtiga ay haystiin aad maxaa lahayd wixii maanta aad qaban kartid ka xali kartid aad ka xalisid wixii aslama qaban kartid aad la qabatid wixii maxaa lahayd maanta di waqtiga aad joogto guriga ilmaha dhinaca xanaanada ka geysatid haddii guriga wax maanta day xanuunsanta aad dhinaca ka caawisid xanuunkeeda iyo aad ka warqabtid aad tiraa macaan intee laga haayaa see tahay ma fiican tahay asaga doo xanuunsiya sidoo kale aad tiraa xabiib see tahay ma fiican tahay maxaa lahayd doo xanuunsiya ragga Soomaaliyeedo boqolkiiba 9 aan warmuha inta fiican way fiican tahay ma sha Allah Allah u siyaadiyo. inta kala soo hartaan warmuyaane warsaa iska bedela. burburka qoys waa bate ani baa idin ma sheegay feeris dhibka ugu badan idinka waa marka sida iska bedela ya Allah saa iska bedela saa xal ma noqohay guriga inaad ka warqabin ilmaha aad ka warqabin محل حالة جورج كجرت أذا كبر خمن حاجة وقت يسن أبحث حلي كلنا أجيفتت حلي كلات هذا البلو كبير أكو هذا الشيء مصر ناس وحوايم ما كان يسدنا كلنا نسنو جورس على تروح وأنت قفك بين أدك نبقي رفعت استرس أكو جرلت وحكونا ما الناس كروس ما كساسكو بدلا ولا شيء صفيو أنا ده ساسكو بدلا أنت في عوي في عنتها يحمانا أنت حنة بس أوتها هاي استوس السباريال